Assalaamu calaykum asxaabta waa idin wada salaamay mar kale haddii aadan channelka subscribe karayn ha iloobin inaad subscribe garayso channelka fadlan mar kale taas waan kaa codsanayna aan u imaado insha Allah hadafkeena caawa waa sabti sad ogeydeen waxa weeyaan videoyada waxay ku saabsan yihiin toddobaadka dhan shanta cisho ee normalka ah waqtiyadaas waxaan trade gareynaynaa trade-yada kabacdina 10 ma dhiganayna waan isla trade gareynaynaa qofkii trade gareynaya kabacdi afkaarta ma soo weydaarsanayna markii sabti iyo maalmaha weekendskaas aynu kol waqti u helno waxa markaas iyada laga hadla ay tahay taagan ama inuu isku sheegna ay tahay ayaan ku soo gudbinaya oo idin sheegay saas buu horta ahaa jadwalka intuusan wali isbedelin waa sida wali sad ogeydeen waxa bilaabtay sanadkan 2020 sidoo kale waxaad sugaysaan inuu bilowdo ama uu bilowday 2020 Turkish scholarship-kii marka ardayda buuxinaysa Turkish scholarship-ka intaysan isku badalin inay buuxiyaan maxaa looga baahan yahay level-kay taagan yihiin waxbarashada oo la rabaa inuu qofku taagnaado requirements-kaas oo saxo horta intaanan scholarship aanan ku gelin maxaan dhahay qaabka loo bixiyo waxaad ogsoonataa inuu Turkish scholarship yahay scholarship-yada aan ugu jilicsaneyn sida loo helo at the same time kuwa waa adag kamid maaha kanaad waxa loo baahan inaad maskaxdaada isticmaasho because dadkan waxay rabaan qof wixiisa laga soo bixi karo taa ogsoono horta mar walba ardayda levelka sare mar walba buuxinaysa waxaan dhahay levelka ugu sareeya ee Turkish scholarship-kan wuxuu buuxinaysa inta badan maxay u heli laayihiin oo kuwa mar walba maxaan dhahay underground-iska waxyaalaha iska buuxinay ay mar walba u helaan jawaabtu waxa weeyaan way dhib yar tahay kuwaas in la qaato oo buuxiyaan maxaan dhahay nabarada loogu talagalay scholarship ayaa waxay iyaga ooga dhib yartaa inay qaataan 100 medicine ma kari karaan aan tusaale 100 engineer bay qaadanayaan 2 medicine bay qaadanayaan tusaale 50 engineer bay qaadanayaan 3 medicine bay qaadanayaan so mar walba si aad wadankan wax ooga barato waxa weeyaan haddii aad leedahay anigu waxaan rabaa inaan wadanka imaado because dad badan waxaa jira ardayda scholarship ku yimaada wadanka laakiin momentigii wadanka yimaadaan because faculty-goodii ma ahan maxaan dhahay marka khasaare kala kulma mid inaad ogsoonaato waa muhiim haddii aad leedahay anigu inaan wadanka ku tago maxaan dhahay qaadaan ma rabaa marka wadanka tagaan iska bedelaya horta arrintaas ma jirto ogsoonaada ardayda ku buuxinaysa scholarship-ka faculty-yada aad ka raqiiska ah si marka ay u helaan ay wadanka tagaan ay iskaga bedelaan ama codsadaan faculty kale arrintaas ma jirto haddaad rabto inaad faculty bedesho wali faculty-gaas oo kii lagu soo aqbalay markii hore ahaa waxaad ku qasbanaanaysaa in aad faculty-gaas aad bedelayso aad yani ay macno la tahay inaad scholarship-kii joojinayso scholarship wuxuu damaanad qaadaya markaad wadanka timaado dormitory-gaaga cuntadaada iyo maxaan dhahay markaas wax kamid ah wixii aad marka transport-iga kamid ah at the same time cuntadaada qaybta maxaan dhahay dormitory-ga iyo qaybta jaamacadda buu kabaalad qaaday marka waxaas oo dhan haddii aadan ahayn qof u diyaarsanaa waxay kugu adkaanaysaa inay maxaan dhahay marka ayada aadan noloshaadiina kasoo bixi karin meel cidlaan ay ku istaajiyaan so fadlan waa iga talo haddii aad background adag lahayn oo scholarship-ka faculty aad ku timaado oo rabto inaad iska bedesho fikirka lagu aaminsiiyay ma jirto ee ogsoono fikirkaas arday badan oo ku daashay hadda wixii ka dambeeyna inaad ogsoonaatay isku day adiga xataa research aad u samayn kartaa ayaga waad email garan kartaa mar walba email-kooda iyo maxaan dhahay meeshaad kala xiriirayso halkan buu wuxuu dhayaalaa anu imaada pointiga markaad scholarship-ka buuxinayso maxaad u baahan tahay inaad ahaato su-aasha koowaad waxa weeyaan jawaabteedaas in aad ahaato qof 12aad graduate gareeyay scholarship-ka haddaad ogeyd in waagii tanka la buuxin jiray oo kabacdi tanka lasoo aqbali jiray ardayda in badan oo kamid ah yani haddii ay arrintaas soo ahaan jirtay way isbedeshay yani scholarship-ka hadda from now on iyo waqtiyadii hadda u dambeysay 2019 2018 totally qofku waa inuu diploma yahay markuu ugu yaryahay waa sax hadda tusaalahan undergraduate waad noqon kartaa postgraduate baad noqon kartaa laakiin waxa qofka ugu yar oo noqonayo waa inuu 12 graduate aado number 2 qofkan waa in uu haysto shahaadooyin real ah inta badan dadka Soomaalida waxay sameeyaan waxay qaataan shahaadooyin aan iyaga maxaan dhahay waxbarashadooda ahayn tusaale yar oo kaaban waxa qofku waxa uu iska soo barbaranay hoosta ama ba doonay dadkan waxbarasho maadaama ay wada helin waxa laga yaabaa inuu ku noolaado meel waxbarasho aan fiican haysanin
kabacdi inuu soo jaamacadda u galo shahaado 12 loo sameeyo and then inuu maxaan dhahaa ama shahaado 12 loo soo sameeyo 12 u galo waxaas la iskugu soo aruuriyeedan momentigii scholarshipka la soo gaaro haddii aad rabto inaad scholarshipka buuxiso waxaad u baahan tahay inaad shahaadooyin real haysato because sababta ayaa kuu sheegaya shahaadada haddii real ahayn waxaa adkaanaysa inaad wasaaradda arrimaha dibadda ka shaambadayso because wasaaradda arrimaha dibadda mar walba waxaa qasaba inaad wadankaaga markaad kasoo baxayso wasaaradda arrimaha dibadda ee wadankaaga inaad kasoo shaambadayso documentigaaga oo ay caddaynayaan in documentigan yihiin documenti real ah wadanka aad joogta markaas waxa weeyaan documentigaagu inay real ahaadaan aad bay muhiim u tahay yani haddaad nasiibka la leedahay nima sheegin number 3 scholarshipka inaad noqoto ardayda ugu horeeya ama maxaa waqtiyada bartanka because haddii aad dhaxdo ardayda ugu dambaysa ayaa noqonaya oo waxaan buuxinaya waqtiyada ugu dambaysa waxaa mararka qaarkood dhacda in aad garan weydo ama inuu isbedelo iyaga waqtigiina iyo dhinacooda la kala horhoreeyo oo kale in ay noqoto adiga waqtiga aad processka submit garaynayso inay noqoto waqtiga ayaga processkooda uu dhammaaday amaba inaad noqoto ardayga ugu dambeeya oo ay adag tahay mar walba in haddii dooniba aan la gaarin markida ugu dambaysa marka mar walba waxaad noqotaa ardayga ugu hor buuxiya amaba dhexda meelahaas hore topka ku jira mar walba dhibcahaaga ayaanu imaanaya waa number 4 dhibcahaaga waa inay noqdaan dhibco wanaagsan mar walbana dhibcahaaga ayaad ka duuleysaa marka aad facultyga dooranayso marka dhibcaha aad ku graduate garanayso waa inay noqdaan dhibco wanaagsan ugu yaraan transcriptigaaga waa inuu wanaagsanaado because transcriptigna role fiican buu ciyaaraa mar walba aan tashanaad u imaado waa in aad maxaan dhahaye aad faculty markaas ayada dhibcaaga u qalmo qaadatay waxay la xiran tahay numberka hadda u dambeeyey waxa weeyaan markay aad buuxinayso scholarshipka haddii aad buuxinayso faculty medicine oo kale waa inaad adigu u malayni karto dhibcahaagu sida ay high u gaarsiiseen in medicine lagu soo aqbali karo imagine wadankaaga haddii dhibcahaaga aad ku helayso medicine probability-ga aad ku helayso Turkish scholarship inaad dhibcahaaga medicine ku buuxiso mar walba waa 25 because wax 75 gaaraya ma jira meeshan total scholarshipka in lagu soo aqbalaba ayaa marka koowaad 25% ka ah haddii ay dhibcahaagu wanaagsan yihiin ku darso 25 kaas iyo 25 kale 50% boqolkiiba in lagu soo aqbalo haddii interviewgaas dabadeed aad interviewga heshana waxay noqonaysaa 75% in interview dabadeed lagu soo aqbalo laakiin mar haddii lagu soo aqbalo oo maxaan dhahay interviewga dabadeed lagu soo aqbalo means inaad scholarshipka heshay in waqtiga uu ku ekaanayo sanadkaaga dhammaadkaaga waxbarashadaada ilaa intaas in scholarshipka waxay ku damaanad qaadeen laakiin the moment aad graduate garayso faraha lagaa qaaday yani ilaa intaas iyaga laakiin ku hayn doona insha Allah waxaan rajaynayaa inay noqdaan istabiyaad adiga aad ku wada jirto insha Allah ta u dambaysa waxa weeyaan kuwa u dambeeya ka mid noqon doonta ID-ga aad markaa ayada ku buuxinayso waxaa wanaagsan qofka hadduu helayo passport inuu mar walba passport ku buuxiyo laakiin waxaa jira shuruudo hoose oo hoos yimaada sida qofku inuu dhalasho wato ama inuu mustaqbal wato ama waxaad markaa adiga u taqaan ID-ga wadankaaga ama aqoonsiga waxaad u taqaano marka waxa weeyaan adiga markaas inaad haysato aqoonsi dawladeed oo dhanka dawladda ama ID dawladeed ID shaqo oo kale noqon kara sidoo kale waxay noqon kartaa qofkaas inuu haysto passport waliba waa the best hadaad passport helayso waa ka ugu wanaagsan haddii aad dhalasho ama passport iyo aqoonsi aad weydana dhalasho waa ta ugu yar mar walba aad ku buuxin karto waxaa ugu wanaagsan man ku yiri passport marka qofku waa inta ruulkaas waa inuu ka soo baxayo intaas ka baxdi waxaa ku imaanaysa inaad scholarship ka apply garayso and markaad apply garaynayso mar walba markaad u timaado qaybta profile-ka halka waa inaad meesha ay tahay waa meesha inaad ka dadaasho ay tahay profile-ka waxaad dhigayso documentiga inta loo baahan yahay dhigayso haddaad helayso extra document way wanaagsan tahay tusaale haddii aad qof tahay maxaan dhahay shahaado computers ka haysta qof private ka qalin jabi I don't know qof wax meelahaas adiga wax ka barbartay soo shahaadooyinka extra ee banaanka aad ka heshay oo kale oo dhan way ku caawinayaan inaad systemka way ka caawinayaan waxaa kaloo ku caawinaysa inaad run sheegto believe me mar walba inaad run sheegto because waxaa badan inaad scholarshipkaaga aad marka aad bixinayso been ku qorqorto minaamin meesha hadda hooya yaaba manooliyad maya xataa inaad iska dhahdid documentigaaga inaad fahay waalidka lacagaha iyo waxa helaan aab wuxuu ka shaqeeyo maam wuxuu ka shaqeyso waxaas lagu weydiinaya adna waxa laga yaabaa inaad adiga sida aad qalbigooda ku jilicsan dhahdo aad wax u dhahdo laakiin marka interview lagu soo aqbalo waa marka wax walba isbedelaya hadaad been soo sheegtay hadaad run sheegtana waa marka wax walba ku dhib yaraanayso because interviewga waxa lagu leeyahay macnihiisu waxa weeyaan in aan lagu weydiinin kalaata general questions oo la saabsan waxbarashada
interview guud ahaan wuxuu ku saabsan yahay adiga naf ahaantaa waxa aad meesha ku qortay iyo adiga in lagu arko iyo qaabka aad u dhaqmi lahayd noloshaada wixii tusaale ee laga qaadan lahaa waqti xaadirka aad hor fadhida ayaga intaas ba ugu muhiimsan scholarship waa intaa macnihiisu sidoo kale waxaad marka ugu dambaysa aadaysaa stageka ama stepka ugu dambeeya marka aad qorayso macnaha ama sababta aad u dooratay scholarshipka waa meesha marka la rabo inaad maxaan dhahay macnaha markaas iyaga soo jiidanayo ku qorto insha allah qoraallo way jiraan insha allah pagekan soo dhigdhigay qoraalada ugu wanaagsan ee lagu qori karo mid kuwa kamid a adigana mar walba maskaxdaada adeegso insha allah waxaan rajaynayaa kuwani inay yihiin kuwa ugu wanaagsan stebyada maxaan dhahay inaad kasoo baxda ay tahay kuwa basic ayaan ka wada raaliada kuwa basic inaad kasoo baxda ay tahay mar walba waxaa wanaagsan inaad adiga pageka baarto pageka halkan ayaad ka geli waxaad ku qoraysaa Turkish scholarship caadi and then you got here sorry typingkayga Turkey Bruslari waa lagu qori karaa laakiin hadda Turkey Bruslari buu isoo qorayaa dan saas waad u geli kartaa because at the moment kan u galo linkiga toos buu ii dhex keenaya as you can see right now so waxaan isku dayay linkin inaan insoo dhigan insha Allah descriptionka waa linkiga aad toos uga aadi lahayd scholarshipka pageku sidan buu egyahay pages badan baa jira ku khaldamin pageku sidan buu egyahay and page marka meesha aad ka apply garanayso login waa halka insha Allah luqadda aad taqaano waad ka helaysaa at the same time waxaad isku daydaa inaad ogaato waqtiga uu furan yahay waqtigaas iyo waxaas dhammaan insha Allah waxaa kaloon idin sheegayaa inaan insha Allah kan 2020 hadduu systemka wax iska bedelay aan maqlo ama aan ogaado inaan qaabkaas 2020 ka loo bixinayo ku tusto insha Allah iyo waxa ay update gareeyeen wax looga baahan yahay numberkooda emailkooda meeshaas waana kuwa ugu muhiimsan mar walba la xiriiri karto insha Allah waxaan idin rajaynayaa dhamaantiin guul kuwa ardayda maxaa ku fikiraysa in scholarship ku bixiyaan fadlan mar kale waxaan ku leeyahay aad channelka subscribe garinayo logna subscribe gareysad aad ay muhiim u tahay insha Allah intaan ku kala iska arkaydana insha Allah waa idin salaam